السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا ku xiran channelkeena Somali Flash News. Dhamaantii soo dhawaada saaxiibayaal caawa iyo wararkii ugu xisaab badnaa ama update-kii ugu xisaab badnaa oo aan rabno markaa inaan idiin soo dayno oo aad ula yaabi doontaan ama waxyaabo idinka qosliya aadna la yaabtaan aad ku arki doontaan. Haddaba intaan u gudbin wararkeena xiisaha leh oo aan rabay inaan idiin soo dayo fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad channelkeena soo booqatay noo like gare noo share gare subscribe tana noo taabo intaas wax weyn ayay anaga agteena ka tahay daba aynu ka socono oo aynu u gudubno marka video-ga aan rabno inaan caawa ka hadalno ama programka aan rabno inaan ka hadalno oo ah markaas programkii iigu yaabka badnaa ee teer iyo maanta aan arkay anigu oo ah mid aad loola yaabo haddaba ninka loogu yeero indho ninka ay markaa beesha reer Khaatumo ama SSC ay u yaqaanaan horgalka ugu weyn ee markaa ayaga ka jooga magaalada Hargeysa ama ka tirsan dawladda Somaliland ee Muuse Biixi ayaa isagu markaas hadlay waraysigu markaas siinayay idaacadaha iyo TV-yada ayaa indho uu galgashay isagoo dhaar ku maray oo sheegay kursigii Cabdirasaaq Khaliif ka tagay ee ahaa gudoomiyaha baarlamaanka oo Cabdirasaaq Khaliif sheegay in reerkiisa isagu uusan ku matali doonin meel lagu dulmiyay oo lagu laayay ayaa waxa dhacday labadii bari ee hadda la soo dhaafay baarlamaanka Somaliland ay ku mashquulsanaayeen oo la isku haystay booskaas qofkii qaban lahaa ayaa in badan la isku qabsaday ayadoo horeyna loo sheegay oo ay ka hadleen dad badan oo loo filayay inay aadaan sida hadda ninka halkan aan ku aragno oo isagu laftigiisu nin ka soo jeeda dhulbaante balse isagu sheegay inuusan kursigan qaban doonin oo uu dhahay meeshii Cabdirasaaq Khaliif maray ayaan maraya uu diiday in booska loo dhiibo balse arinta la isku qabsaday ayaa ahayd ninkan isagu hadlay ee dhahay booskaas la rabo inaan qabto ma doonay anigu inaan qabto ma yahay markaas nin beeshiisa matali kare ama ay Somaliland u aragtay nin cuntami kare in ay booskaas siiyaan ma aha mase ma ahayn horta asla aragno intaynan ugu indho iyo goolaftanka uu saaka galay ee uu dhaartana ku maray in wax badan baabiin doono kursiga aan ka ayaa 12 bish oo Cabdirasaaq Khaliif halkan iska casilay ummaddu anigay soo yeegaysay muxuu yeeri doonaa muxuu oran doonaa ayayna lahaay waxaan rabaa wixii aan ahaa inaan ummadda u sheego oo ah inaan ahay nin baahan inaan ahay nin yani maaragtay bilaadamiira inaan ahay nin yani maaragtay rabo inuu taariikh xun galo aanana u dhalan waxaan ka soo jeedaa anigu reer la yaqaano reer qaniya oo abka ab ahaa dadka xoolaha iyo talada labadaba ilaahay ku manaystay marka waxaan leeyahay alxamdulilah labadeedii awooba waxay ahayn hogaamiyayaal Cawl Cabdidiif iyo Xasan Yar Faarax Guri marka ma rabo inaan caayiladayda noocaas iyo caayilad guud hartiyo inaan magaxumo u soo jiido mana rabo taabkii iyo halgankii Cabdirasaaq Khaliif uu umadiisa tusay ee uu halgan ku joogay inaan xumeeyo ama aan noqdo daba ninka aad hadda soo aragteen oo ah isagu markaa nin tirsan ama ka soo jeeda beesha laascaanood ee SSC Hargeysana jooga ayaa isagu sheegay in uu gabi ahaan basna ka soo goostay Somaliland booska uu markaa Cabdirasaaq Khaliif ka tagayna isaguna uusan qaban doonin diyaarna u ahayn inkastoo la isku qabsadaba ninkan aanu ka sii gudubno teen xiisaha badan ee aan rab markaa inay idiin soo daayo ayaa ah indho oo aad taqaanaan wasiirna ka ah Somaliland Muuse Biixi ay aad isugu dheer yihiin marna ahba seedigiis sida la sheegay ayaa isagu taaka dhaar iyo wacad ku maray qofkii ka soo agwareega booskaas Cabdirasaaq Khaliif ka tagay uu xilka iska casilay in uu markaas isagu la dagaalami doono ama uu dhibaato gaarsiin doono indho oo ah markaa nin isaga beesha uu ka soo jeedo ee laascaanood ama dhulbaantaba raalli aysan kaba ahayn diidan yihiin horeyna ay u sheegeen dii loo soo gudbiyo ama loo soo dilabo inay alxamdulillah dhihi lahaayeen waa adduunyo kala warla iyo adduunyo aan warbaysu hayn daba indho ayaa isagu sheegay booskaas Cabdirasaaq Khaliif ka tagay in ay leedahay beeshiisu aysan cid kalena qaadan karayn indho oo dhaartay marka dhahay qofkii marka baarlamaanka jooga oo isku soo dayay inuu boos ka qaato anigoo nool oo jooga waxa dhici doonta tii dheereed inay ku dhacdo bal indho iyo marka dhaarta uu maray iyo booska sida uu rabo isagu inuu ku qaato bal aan isla aragno waa kanay lix jiran waa baan diiday Somaliland ka tago anoo 60 jiran ka tagay haddii la taabto anoo manaagaan ma ahaan kursigeeyaguna waa masaajid nin masaajid baayacay kama duwana قلت مساجدة بايع أنا أقوله دوني عرق حدا ركتين سو دق ما وعن سيا كوكاتشان واقعنا نيك فرصة قاقع والله بالله تالله أنا وقدم بيني وأنا من ذلك بابيني رواية Somaliland ولا بابية أنت يا تشوك تانا ونسود عسيل هنا يمكن شيءنا أنا على كرسي خيرني ما نقولني إن حاب سلام فدي دستور كي كو قرنتي مسائل عبا كو قرنتي سمد حوينا كو قرنتي
haddaba su-aashu waxa ay ka taagan tahay indho waad u jeedaan dagaalkiisa iyo bootada uu ku jiro iyo waxa uu sheegay uu dhahay marnaba raalli kama noqon maayo in booskaas cidi soo hungurayso ama laguba fikiro in la qaato booskaas annaka ayaa u joogna u tashanayna su-aashu marka waxay ka taagan tahay beesha laascaanood ee dhulbahante indho siday u arkaan indho waxay u arkaan inuu yahay nin horgal ah oo iyagana aan ka tirsanayn markaas haddii lacalla uu markaa xitaa noqoto in uu somaliland kasoo tago ama hargeysa uu kasoo tago oo markaa laascaanood yimaado in ay sheegeen inay dili doonaanba oo isaga iyo mahad cambaashe indho iyo qowr qof oo kale oo markaa ay beesha ka tirsan welina hargeysa jooga horgallana ah ama ay beeshu dhaheen waa horgallo haddii ay laascaanood yimaadaanna dil toogasho ah ayaa u yaalla waa kaafiya kala dheeri indho isaguna waxa uu taagan yahayba beeshayda anaa u qaadanaya xaqeedii beeshiisuna waxay taagan tahaybu ninkaas nagama tirsana xaqna naguma lahan annaguna somaliland kama tirsanin indho iyo kuwa lamidka idin joogana waaba dil toogasho haddii ay yimaadaan magaalada laascaanood bal asla dhammaysana indho iyo videogiisa annaga ale kan nin u tartami karaana ma jiro ka doonayaana waa mid doonaya cabdirasaaq oo kale inuu samaysto oo sala intay doorteen ay balaak miilgaraynayeen oo ujeedada ay doonayeen war ka bax waxaa ninka doonaya car haddaa ragtiin soo dheg maa waxaan saya ku kaajaan u aqaanaa ninka kursigaa qaata wallaahi bilaahi tallaahi baana uga dambaynay waana nin dalka baabiinaya 6 jir anigoo abaan diiday somalilandna ka tago anoo 60 jiraan ka tegay haddii la taabto anuu manaagaan nuri ma ahaanano kursigayguna waa masaajid nin masaajid baayacay kama duwana orday masaajidada baayaca anaa ku ma faransiis baan anagu meelnaan daarood hayn ma tacabkaan soddonka sannadood tacaynay iskuullada iyo dhakhtarada la duminaya ma ciidankayga lagu soo duulaa lagu sheegaya inay duuleen dib dambaysa oo aamusnaan mayno indho oo booteynaya dagaalamaya booskaana wacad ku bara qofkii agtiisa kasoo wareega inuu dhagta dhiigga u dari doono ama uu dili doono weliba ku hanshabay dadkii markaa isaga meesha la joogay ama maqlayayba dhahay carwa ninkee ayaa booskan xitaa soo hadal qaadi kara iskaba daa inay u qorsheeyaan inay dad kala keenaan car ninkee ayaa soo hadal qaadi kara indho oo aan ku ognahay inuu inta badan yahay nin gacantiisa fudud tahay isagoo xitaa markaa baarlamanka dhexdiisa joogana ay kaba suurtoodo inuu gacan qaado indho markaa isagoo ku hanshabay inaan booska baarlamanka ama qofka saddexaad ee somaliland marka maamulo in aan lasoo haweysan karin intii ay ayagu joogaan oo uu sheegay in maalintii uu jiray 6 sano jir in uu somaliland markaa isagoo ku soo biiray isagoo 60 jirana ka tagi doono balse intaas wixii ka horeeya in aan booskaas cidina soo hungurayn karin balse beeshiisu ma la qabta weeye su-aashu waa maya indho beeshiisu way kasoo horjeedaa raallina kama ahan horeyna way u sheegeen waxay dhaheen horgallada naga jooga magaalada hargeysa hana loo soo gudbiyo ama soo dilo haddaba intaas waxaa kasii daran oo marka jirta shacabka reer somaliland ama beesha isaaqba ma haddii aan dhahno sidee ayay u arkaan indho mahad cambaashe iyo horgallada marka kasoo jeeda beesha harti ama dhulbahante ee markaa jooga somaliland oo ay dhaheen waa dad lacagtii naga dhameeyey jeebkeennii ka qaylaya maalin walba hudhuhadhaa iyo wax aan marka loo baahnayn iyo hadal aan soconaynin hargeysa ku haya oo lacagtiina naga dhameeyey waxayna dhaheen annagu raalli kama nihin in ay hargeysa noo joogaan haddii laascaanood oo ay matalayeen ama sool iyo sanaag iyo cayn oo ay matalayeen aysan aadi karin waxna ka keeni karin in ay annaga hargeysa noo dhex joogaan lacagteennii ay cunaan maalin walba qaylaad iyo qarashkeedii oo diyaar u ah intay soo kacaan ay isticmaalayaan raalli kama nihin ee dhulbahantow ama hartiyow naga qabsada horgalladiina oo naga kaxaysta iyadoo beesha hartina ay markaa dhahday duco ayaan idinku daraynaa haddii aad soo dishaan oo meydkooda aad noo soo gudbisaan nolol maba ku rabnaba haddii aad nolol ku keentaanna waa alxamdulillah oo annaka ayaaba gacanteena ku dilayna bal haddaba shacabka reer somaliland iyo waxa ay ka aaminsan yihiin horgallada markaa dhulbahante ee jooga hargeysa muuse biixina la shaqaysta iyo sistamkiisa oo ay ka mid yihiin indho iyo mahad cambaashe iyo kuwa kale oo markaa badan bal aan isla aragno ta ku dhacda ee iyo marka ay ka aaminsan yihiin reerkiinina aan weerarno sacabkana nooto waa taane 5 nin in cabdirasaaq la hadalay amba cidii telefoon u dirtay baanu xukumaynaa heega taraag waa حوية وحياة حلقة أنتو قوم كروجا دلك دلك كروجي مركا إساء قوم الهرت إذا كمت بريد صفر يا وان من كراي فرانك فوتشو عاو أو كبرنا الدين هي واحد مين شيء يوم والعقل حكومة موسى هيسكت لنا إساء قوم ومن الصومال لأنها كلها على منا هيسكت لنا إذاكم ومن لنا الصومال لأن لك إذا لا تعالى هكود لنا أنا مركز مالك صفرية قلنا البحثي هالك شوكتي كرسي عنا قاري لكن بيا لقو شوبي هالكلام يا الله طبعا
kuuba diidi mayna kursigana horta meydalkii iyo dadkii aad xukuminay waa kuwa dagaalka ku jira waa kuwa xukuumadda la dagaalamaya barakacay haddaba faratolow in adeerow shinidii dhulbahantana waa tagtay cabdirasaaq baa ugu dambeeyey adiguna duqsiga yiri waan guurayaa weliba ducaanu kuugu daraynaa baad tay anaa kuloo baaba adeer ducaanu kuugu daraynaaye iska tag shinidaa dhulbahante iyo shinidaa warsangeli ka daba tag ee muuse uu garan waa ee xukuumaddu garan weyne ee adeerkii siiraayo dastuurku soo saaray iyo cali galay labadan nin iyo adeerka ee dal iyo diinba naga dhaxayso la garan waayey adeerkii siiraayo dastuurku soo saaray ee yiri waar fura ee cali galeeriyimi yiri waar fura ee cadaalad ay waayeen dhulbahantay wax u fura ay waayeen adeerka ma nacaysan ninku waayo waa adoo kale baa la yiri shinidii dhulbahantay cabdirasaaq baa ugu dambeeyey indhada jooga iyo lixdiina jooga iyo wixii la kursi baanu doonaynaa iyo Muuse Biixi baa nagota iyo xukuumad baa nagota iyo waar duqsi noogama duwaneed ee dhulbahantii bayuurka ahaa iyo dhulbahantii dalkan ahaa iyo warsangeligii ilaahay dalkan lagu wada beer ya adeer Muuse raray xukuumadda rartay shinida asadeer ugu dambeysay cabdirasaaq baa ugu dambeeyey mid maxaa ugu dambeeyay iyo kala siisido intiina halkaa joogteen kursiga naga qaadanayna adeer duqsigii aan ducada ugu darnay baatay dadku ay yiraahdeen duqsiyo guur ducaan ku darayna laakiin cabdirasaaq iyo garaadada iyo dhulbahantii iyo warsangeligii iyo dadkii dalka nala lahaa adeerow shinni bay ahaayeen way iska tegeen oo kuwa dagaalamaya intaas ay iskaga tegayaan